jannada iyo naarta meelo aysan indho arag dhego maqlin qalbiyaduna qiyaasi karin. Marka uu ruuxu dhinto wuxuu gelayaa safar dheer, safar aanay jirin wax la mid ahi oo dunida guudkeeda ah. Waa safar ku dhammaada laba meelood midkood, waana janno ama naar. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, jannada waxaa ku jira wax aysan indho arag dheguhuna maqlin qalbina qiyaasi karin. Haddii aad wax qiyaasi karto saaxiib, jannada ma ahan. laakiin waxaan kaaga jawaabi doonaa maanta su'aalaha ah: maxaa ku jira jannadaasi, maxay tahay iyada, sidee ayay u eg tahay, iyo sidee ayaa lagu geli karaa? jannadu waa meel xasilloon, quruxdeedana indhuhu ma qaadi karaan. Waxaa ka buuxa webiyo socda, geedo hoos u fidsan, cunto aan daal laga dareemin, cabitaan aan madax xanuun lahayn, dhar aan duugoobin, wejiyo dhalaalaya iyo farxad aan weligeed dhammaanayn. Alle casa wajalla wuxuu yidhi, waxay ku dhex jiri doonaan beero barwaaqo ah, biyo webiyo socda ah oo sariiro kor laga saaray, koobab cadcad iyo waxyaabo qurux badan oo siman. Waxaa lagu qaabilayaa mu'min kasta wejiyo ifaya, waxaa la siinayaa dhar dahab ah, cadar aan dhammaanayn, socod aan daal lahayn iyo xurulacayntii jannada. Waxaa lagu sheegay inay yihiin kuwo indho qurux badan leh, cod jilicsan iyo jir lagu sharfay dadkii samray. Jannadu waa guri lagu dhisto hadba camalkaaga. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii dhaho subxaanallah, alxamdulilah, laa ilaaha ila allah, allahu akbar, waxaa jannada looga dhisaa geed. Geedahaasi hoostooda waxaa mara webiyo caano ah, malab khamri tayada ugu saraysa lagu laray. Haddaba ma doonaysaa inaad hal subxaanallah ku dhisato janno? bal markanna aynu ka waranno dhanka kale ee naarta. Naartu waa meel laga dareemo xanuun aan dhammaan, oohin aan la maqal, qaylo aan garab iyo gargaar lahayn. Allena casa wajalla wuxuu yidhi, kuwa gaaloobay waxaa u sugnaatay naarta jahannamo. Mar kasta oo la jarjaro jirkooda waa la beddelaa si ay cadaabta u dhadhamiyaan. Naartu waxay leedahay xoolo, qof, dhar, suuli, raashiin iyo xabsi u gaar ah. Cuntadeedu waa geed kulul oo lagu magacaabo zaquum. Cabitaankeedu waa biyo la shiday. Dharkeeduna waa naxaas kuleel badan. Su'aasha ugu dambaysa waa sidee nolosha aakhiro? Nolosha aakhiro waa mid aan laga baxsan karin. Qof walba waa uu dhiman doonaa, qof walbana waa uu la kulmi doonaa geerida oo uu la kulmi doonaa rabbigiis. Wuxuu Eebbe casa wajalla noo leeyahay, qof kastaa wuxuu dhadhamin doonaa dhimashada, kadibna waxaa loo celin doonaa Alle xaggiisa, oo markaasna lagu abaalmarin doono camalkiisa. Haddaba ma rabtaa janno? Ku dadaal, waad heliye. Ma ka cabsanaysaa naar? Haddaba iska ilaali, waad ka badbaadiye. Xasuusnow, ma jiro qof damaanad u haysto inuu janno geli doono. Camalkaaga ayaa ku horseedi doona iyo raxmadda Ilaahay casa wajalla. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii dhammaadkiisa noqda laa ilaaha ila allah, janno ayuu geli doonaa. Intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. Alle ha inaga dhigo kuwa jannada lagu abaalmariyo. Hada wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.